khamiis la sheegay inuu xidhan jiray Nabi Maxamed nabad iyo amaani korkiisa ahaatee taasi oo ay xafideen qaraabada inuu nebigu hadiyeeyay khamiiskaasi ayaa lagu soo bandhigay dalka Turkiga. Khamiiskan oo Ramadaan walba lagu soo bandhigo masjid ku yaala magaalada Istanbul ayaa haatan soo bandhigaya 2 sano kadib sabab la xiriira xanuunka COVID-19 iyadoo masjidkaasi oo dalxiisayaal badan soo booqan jireen la xidhay xilliyada ay aad ku badnaayeen kiisaska xanuunku. Dadka haya khamiiskan ayaa 2 sano kadib dadka u sheegay inay iman karaan masjidka hirka Serif maadaama ay hoos u dhaceen kiisaska xanuunku. Baris Samir oo ka soo jeeda Uways Al-Qarni oo ah ninka la sheegay inuu nebigu u hadiyeeyay ayaa sheegay in khamiiska la soo bandhigayo Jimcaha baara 10 subaxnimo waqtiga dalkaasi ayna halkaasi oo lidoonaan ilaa iyo dhamaadka bishani. Uways Al-Qarni oo asal ka soo jeeda dalka Yemen ayaa sida taariikhda lagu xusay wuxuu qarnigii 7aad u safray magaalada Madiina si uu soo arko Nabi Maxamed nabad iyo amaani korkiisa ahaatee balse isagoo aan nebiga arkin ayuu dib ugu laabtay Yemen sabab la xiriira hooyadii oo xanuunsatay. Waxa la sheegay in markii Nabi Maxamed nabad iyo amaani korkiisa ahaatee uu maqlay sheekada ninkani inuu hadiyeeyay khamiiska isagoo ugu dhiibay dad ugu geeyay dalkaasi Yemen. Al-Qarni oo kamid ahaa dadkii ugu horeeyay rumeeyay nebiga ayaa geeriyooday 24 sano kadib geeridii Nabi Maxamed waxaana la sheegay inuu kamid ahaa ciidamadii khilaafadii Ali. Al-Qarni maanu dhalin waxa ruura khamiiska ayaanu sii hadiyay walaalkii waxaana ilaa maantana gacanta ku haya qoyska ka soo farcamay Al-Qarni. Qoyska Al-Qarni ayaa qarniye waxay ku noolaayeen koonfurta magaalada Anatolia ee dalka Turkiga waxayna markii dambe u soo guureen Kusadasi oo ku taala gobolka Aegean. Qarnigii 17aad Uthman Sultan Ahmed ayaa ka codsaday inay keenaan magaalada Istanbul oo lagu kaydin jiray dhammaanba waxyaabaha taariikhda u leh Islaamka. Markii khamiiska la keenay Istanbul waxa lagu riday sanduuq loo sameeyay 2 quful mid waxa la siiyay suldaanka halka kan kalena la siiyay qoyska Al-Qarni. Samir ayaa wakaalada wararka ee Turkiga Anadolu sheegay in khamiiska loo soo daawasho tagi karo ilaa 29 bishan Abriil maalmo ka hor ciida wuxuuna intaasi ku daray inay ka codsadeen dadka u soo daawasho tagayay inay ka digtoonaadaan xanuunka COVID-19. waxaan samayn doonaa xayiraado badan waxaana ka codsanay dadka soo booqanaya inay u hoggaansamaan ayaa uu yiri. Istanbul waxa yaala in badan waxyaabaha taariikhda waa Islaamka waxaana lagu kaydiyaa Topkapi Palace tan iyo markii Sultan Selim uu qabsaday Masar qarnigii 16aad isagoo la soo wareegay waxyaabo badan oo taariikhi ah. Sanad walba in ka badan 1 milyan oo muslimiin ayaa la sheegay inay daafaha dunida uga yimaadaan daawashada khamiiskani. Tirada dadka ayaa mararka qaar intaasi ka badata gaar ahaan habeenka la fisho Laylatul Qadriga. Rashid Baar Adeer iyo Latiif